awoodda military ee dowladaha Itoobiya iyo Masar aan eegno waxaan ku hormari doonaa awoodda military ee dowladda Masar. wargeyska The Forbes ayaa militariga wadanka Masar ku tilmaamay kan ugu awoodda badan dalalka bariga dhexe marka laga soo tago dalka Turkiga oo ah dalka awoodda ugu badan ku leh gobolkaasi. shacabka dalka Masar oo ku dhow 100 milyan oo qof ayaa tirada dadka dagaalami kara waxa wargeyska Global Firepower uu ku qiyaasay inay gaarayaan 43 milyan oo ruux, halka kuwa howlgalka gali karaya ay gaarayaan 36 milyan oo ruux. ciidanka militariga ee dhulka ee u diiwaan gashan wasaaradda gaashaandhigga ee dowladda Masar tiradoodu waxay gaaraysaa 920,000 oo askari, halka ciidamada hadda howlgala ay gaarayaan 450,000 oo askari. dowladda Masar ayaa sidoo kale haysata ciidamada kaydka ah oo gaaraya 480,000 kuwaas oo hadii loo baahdo dagaal gali karaya. wargeysku waxa uu sheegay in dowladda Masar ay haysato 4,295 oo ah taangiyada dagaalka, 11,700 oo baabuurta gaashaaman, 2,189 oo gantaalada goobta laga rido iyo 1,084 oo ah madaafiicda wax duqeeya. dhinaca kale ciidamada badda ee dowladda Masar waxaa shabakada Global Firepower ay ku sheegtay in agabka ay haystaan guud ahaan ay gaaraysa 316 shay. ciidanka badda ee dowladda Masar ayaa haysta 2 markab oo ah kuwa qaada diyaaradaha, kuwaas oo ay adag tahay in la helo dal kale oo Afrikaan ah oo haysta. waxaa xukuumadda Qaahire ay haysataa 2 markab oo ah kuwa dagaalka, 8 gujis oo ah kuwa badda hoosteeda maquurta, 45 markab oo ah kuwa kormeera xeebaha iyo 31 maraakiib ah oo ah nooca badda ku aasa miinooyinka ama burburiya miinooyinka badda lagu aaso. militariga dowladda Masar ayaa sanadkiiba waxaa lagu qarash gareeyaa dhaqaale gaaraya 3 bilyan oo dollarka Mareykanka, waxaana qayb ahaan lacagtaasi bixiya dowladda Mareykanka. ciidamada cirka ee dowladda Masar ayaa haysta 215 diyaaradood oo ah nooca dagaalka, 59 diyaaradaha militariga ee xamuulka qaada, 387 oo ah diyaaradaha lagu tababaro ciidamada cirka, 294 oo ah diyaaradaha qumaatiga u kaca ee helikobtarka loo yaqaano, iyo 81 oo ah helikobtarada wax weerara. marka laga eego dhanka sirdoonka, dowladda Masar ayaa tababaro kala duwan waxay ka heshaa wadamada reer galbeedka haba ugu badnaadaanee Mareykanka. sidoo kale waxaa la sheegaa in hay'adda Mossad oo ah sirdoonka Israa'iil in ciidamada iyo kuwa sirdoonka ee dowladda Masar ay tababar ay siiyaan. awoodda ciidanka sirdoonka ee dowladda Masar ayaa la sheegaa inuu yahay mid aad u sareeya marka la eego wadamada Carabta iyo bariga dhexe, waxaana la sheegaa in xogaha ugu badan ay helaan isla markaana ay tahay dowladda Masar kuwa awoodeeda dhanka sirdoonka marka xogta ay helaan howlgal hore ka fulisa. markaana aan eegna awoodda militariga ee Itoobiya oo kamid ah dalalka Geeska Afrika ugu awoodda badan ayaa tirada dadka ku nool wadankaasi waxay gaarayaan 108 milyan oo ruux. dadka awooda in ay dagaalamaan ayaa gaaraya 41 milyan oo ruux, halka kuwa dagaalka gali karaya ee haatan diiwaan gashan ay gaarayaan 162,000 ilaa 300,000 oo askari. militariga dalka Itoobiya ayaa wargeyska Global Firepower waxa uu wariyay inuu haysto 400 oo taangiyada dagaalka, 114 oo ah baabuurta gaashaaman ee dagaalka, 67 gantaalada dhulka lagu rakibo ee artilleriga loo yaqaano, iyo 183 oo ah madaafiicda wax duqeeya. ciidamada cirka ee Itoobiya waxa la sheegay inay yihiin kuwa ugu awoodda badan marka loo eego kuwa Geeska Afrika, waxaana dhawaan ciidankooda ay ku xoojiyeen hanaanka gantaalada difaaca ee cirka oo ay ka soo iibsadeen dalka Faransiiska. diyaaradaha dagaalka ee Itoobiya ayaa lagu qiyaasay 24 diyaaradood oo ah kuwa miigaga loo yaqaano ama miiga ah, 9 diyaaradood oo ah kuwa xamuulka qaada, 20 diyaaradood oo ah kuwa lagu tababaro ciidamada cirka, 33 diyaaradood oo ah nooca qumaatiga u kaca ee helikobtarka loo yaqaano, iyo 8 oo ah noocyada wax duqeeya. Itoobiya ma lahan wax ciidan bad ah maadaama aysan lahayn bad. qaar ka mid ah warbaahinta Itoobiya ayaa sanadkii hore waxay baahisay in dowladda Faransiiska ee Itoobiya ay ka caawinayso inay dhisto ciidanka badda oo la kala diray sanadkii 1991 kadib markii Eritrea ay ka madax banaanaatay Itoobiya, halkaas oo saldhig u ahayd ciidanka badda ee Itoobiya. inkastoo dowladda Itoobiya aysan si rasmi ah u shaacinin halka uu noqonayo saldhigga ciidankooda badda, haddana sanadihii la soo dhaafay waxaa jira warar sheegaya in saldhig looga dhisi doono midkood dalalka Eritrea, Djibouti iyo Suudaan, iyada oo qaarka kalena ay hadal hayeen Soomaaliya. wargeyska oo soo xiganaya ila dowladda ayaa sheegay in Itoobiya ay go'aansatay in saldhigga ciidanka badda laga dhiso dalka Djibouti. sida uu wargeyska uu qorayna arrintan waxaa lagaga hadlay kulankii ugu dambeeyay ee Abiy Ahmed uu ku tagay dalkaasi Djibouti, halkaas oo kula kulmay madaxweynaha dalka Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle. hayeeshee wararkaasi waxaa beeniyay safiirka Djibouti u fadhiya dalka Itoobiya Maxamed Idris Faarax oo yiri warkaasi waa mid jaraa'idyada Itoobiya iska dhex socda.
maxamed idriis waxaa kaloo uu sheegay inaanay haynin wax heshiis ah oo labada dowladood ay isla gaareen. dhanka sirdoonka marka la eego Itoobiya waxaa la sheegaa inay yihiin kuwa tababaro kala duwan ka hela wadamada reer galbeedka sida Faransiiska iyo Mareykanka. ciidamada Itoobiya dhanka sirdoonka ayaa la sheegaa inay yihiin kuwa ugu tayada fiican marka loo eego wadamo dhowr ah. dadka Itoobiyaanka ayaa sidoo kale la rumaysan yahay inay si aad ah ula shaqeeyaan hay'adda sirdoonka ee Itoobiya, taasi oo ka dhigtay in macluumaadyada ugu badan ay helaan kana hortagaan dhaqdhaqaaq kasta oo wax lagu yeeli karayo ammaanka dalka Itoobiya. waxaan filayaa inaad ogaateen macluumaadyadani ku saabsan isbarbardhigga labada dowladood ee militariga, sirdoonka iyo booliiskaba. warbixintaanina BBC-da ayaa qortay.